wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa sheegtay in wasaaraddu ay baaritaano xaqiiqo raadin ah ku sameyn doonto sababaha keenay in arday badan oo sanadkii hore galay imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare ay heleen buundooyin hoose. shacabka xoolo dhaqatada ee ku nool degmada Haroreys ayaa sheegay in xilligan oo jiilaal ah ay isticmaalayaan ceelasha riiga ah ee xukuumaddu ay ka hirgelisay degmada Haroreys. kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiin badawadayaal halkani waa Moobaahiyeen Shakaal TV xaruntiisa magaalada Jigjiga waxa la soo gaaray xilli tabinteena warka fiidnimo hadii ay baraali ka noqdo warka waxa inay ku diyaarsan anigoo Muna Xuseen Aadana. wasiirka xafiiska horumarinta beeraha ayaa maanta ku dhawaaqay inay jiraan xanuuno halis gelin kara beeraleyda deegaanka Soomaalida sida faafahinta warkaasi inoogu eegayo wariye Cabdiraxmaan Warmaal. wasiirka xafiiska horumarinta beeraha ee dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Cabdiqaadir Iimaan waxa uu maanta markii ugu horeysay ka dhawaajiyay inay jiraan xanuuno dilaacay isla markaana halis ku ah guud ahaanba beeraleyda ku tiirsan wax soo saarka dhanka beeraha ee deegaanka Soomaalida. hadalka wasiirka ayaa waxa uu soo beegmaya maruu ka jawaabayay su'aalaha ay weydiiyeen gudiyada joogtada ah waana kan wasiirka uu ka jawaabaya su'aalahaasi. cudurrada aad buu badan sanadkan marka cudurrada markaad eegto saddex sababood baa keenaya cudurrada saddex sababood keena waxa kamid ah maareynta oo xumaata soo markaan liinta soo qaadano beer waxa jira hadda ku taala halkan dhagax leh ka kacbay noqotay beer dhaweyd dhibtu maxay ahayd beerta qashin naga ma gureyn qashinka haddii liinta xumaatay ku dhacdaato lama qusayna taqaanaan geedka waa in loo xiro looma xiirin cudurku markuu bilowyan lama daweynin beerta marka waxaan samaynay macal beeraleyda area dhan baan isku yeernay waxaan ku nidhi shaqaale u keeno beerta quseeyay waxa la wixii qashin ahaa inuu ka guray suntiina waan u tilmaamay meeshii ku siibsanno baan soo iibin shaqaalahaygii baan geynay sintiisa loo isticmaalayay waan baray beerta maanta way caafimaad qabtaa maanta beertii horse saasoo kale aan ku samaynay laakiin dhibta jirta waxa weeyeen dad badan oo beerihi leh taxanaanayntii la rabay beertii ma qabanayaan xafiiska beeruna dee inuu beer kasta dawo sun geeyo tabarta miisaanadiisu ma saamaxayso hadda eraro kale markaan eegto oo tagto intaas jeer baan isku daynay meel badan ka qabanaa jira laakiin dhibta jirta waxa weeye qaarkood way shaqeynayaan fiican yihiin laakiin beeraha qaarkood beerta si la rabay loogama shaqeynayo waxa kale oo iyadna imanaya oo dhibta keenaya oo qaybka dalag isku mid ah hadda bankan Jigjiga markaad fiirisaan qamadi baa la qodayaa haddana qamadi baa ku xigaya waan ka talin waxaan ku niyad dalag isku mid ah ku xigin maxaa imanaya marka cudur kasta iyo haramo kasta oo qamadiga la ehla oo si badan dad badanna waxay inaad u fiirsan laga yaabaa maalinta uu beerta beero iyo maalinta uu geeynu tagaya hadda beeran laga shaqeyn marka dhibaatooyin badan oo noocaas way jiraan sunta markay noqoto marka annagu sun kooban baan yaan soo iibinay miisaaniyadahan ama federal ka soo qaadna sunta kooban degmooyinka waan gaarsiinaa kuwa marka ugu dardaran waxa laga yaabaa in degmooyinka oo dhan gaarin marka ciladaas oo jira laakiin sun ma gaarsiin karna annagu degmo kasta dhibaatooyinkaasina waa saas laakiin waxyaalo badan ka qabanay way jiraan ma oran karnaa arintan maaragtay muwaaqarka taageerada la siiyay uu yar yahay baad tirahdeen mid horta inaan ka yar jawaan jeclahay sanadkan oo markii koowaad aan samayno kormeer ilaa 83 degmo oo dabagal baan samaynay daabuurkan dhaliila laga sheegay oo dhan waan soo dabagalnay dabagal balaaran waan samaynay waxaan hadda noo qorshaysan maadaama anaga dabagalka soo samayn inaan qabano shirweynihii annaga iyo muwaaqarkayga aan ku wada hadlaynay tan anaga soo gashay 6 bilood buu noo qorshaysnaa inaan qabano noo qorshaysan laakiin taa kale waan siinaa dhaliil ma ka jirtaa dad leedihiin way ka jiri kartaa taana intaasaan kaga bixin degmada Iimay galbeed kanaalka uu jira Bordaxoor kanaalkaasi mushkilada dhacday kanaalka isagoo 1 kiiloomitir 700 dhisnay ayuu wabigii guuray wabigii markuu guuray meeshii uu markuu hore marayay 4 kiiloomitir buu u jirsay qolo federaal lacagta naga bixinaysay kadib daraasado badan baan sameynay meesha ugu dhow ee la heli karay wax noqdo 1 kiiloomitir iyo 700
ayay noqotay lacagna uma aanan hayn marka waxay noqotay dee inaan qoladii la xaalo oon dee lacag raadino mashaariic kale noo filin baa jirto horta kuwan dhamay yidhahdeen kaabal xal baanu raadinaynaa hadda tii safgarad baan ku dhownahay in maaragtay iyaga ay wixii naga bixiyaan laakiin cilladda waxay ka timid webigaasoo guuray ayay ka timid tuulada sogsog ee Hargeyle kanaadadan kale iyadana ku noqdo waa Hargeyle iyo meesha la yiraahdo ceel karre labadu waxay u istaageen biyo baxday bay u istaageen qandaraasli wuxuu u joojay biyo baxo cidii tagtana waa aragtaan filaya marka biyo baxada aan baa joojisay cillad kale meesha ka taagani ma jirto iyada marka ceel karre iyo meesha la yiraahdo sogsog badda shaqa kama socon markii biyo baxda kadib haddana inay insha Allah hore u dhamaadaan baan gobolka Doolo laba su'aalood baa isdaba taalo madaxweyne iskaashitooyinkii waa laga reebay oo dhibta yar jirta waxa weeyaan arrintan fertilizerka goboladu koota u arkaan gobol heel maxaa loo siin waayay gobol heel maxaa loo siin 16 daladood baan sameynay waxaan ka duulay gobol kasta inta hektaar la beerto iyo waxa la beerto qaar ka mid ah shacabweynaha ku nool magaalada Jigjiga ayaa ka hadlay doorka ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada iyo ilaalinta nabadgelyada nabadu waa furaha nolosha iyo horumarka ilaalinta iyo ka qayb qaadashada nabadgelyadu waa waajibaad saaran qof kasta oo muwaadin ah haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga ayaan wax ka weydiinay doorka ay ku leeyihiin shacabku ka qayb qaadashada nabadgelyada iyagoo ka hadlayana waxay dhaheen sida tan door weyn bay ku leeyihiin inay ka qayb qaataan weeyaan nin kasta oo muwaadin ah inuu nabadgelyada ilaaliyo waajib weeyaan wax munaasib weeyaan waxa weeyaan بوليس محل هذا كوميونيتي بوليس وحويان وما تسكت تكتي ويان وشعب كوميونيتي بوليس وضد تسكت تكتي بوليس كحكوا كصوب حي شعب كصور ده بحي شعب كحكوا كصور ده بحي لفت جوا بوليس مركها وحويان بتقلي ذا ين لوضع إلى مناسب ويان فإذا وين بقدر نكتة توجي بالهلية حول بالهلية وقدم بين شعب كحكوا بورين لها إن بتقلي ذا إلى عليه ونكستاك غيب قاتل يارتا بقول كيو بقول وقصب إن مقرنا يساعد الشعب كه iyo boolisku ay wada shaqeeyaan hay'adaha amnigu mideeda kale inagii baa ku danqabna Soomaaliya inaan ma garanaysaa nabadgelyo aan helno markaan ku qasbanahay hadii buu shacabku uu daawanayo ma garanaysaa waxyaabo amnigeena ma garanaysaa dib ku ah oo uu iska dhaafo una amniga una ka shaqeyn oo una kala shaqeyn ma garanaysaa hay'adaha amniga hadhow toolo waxa ku soo laabanayso waa inaga markaa waan ku qasbanahay inaan ma garanaysaa aan la shaqeyno ku boorinayaan shacabka ma garanaysaa dhalinyaradu ay wada shaqeeyaan oo ma garanaysaa magaalada inaga iskale inaan magaaladeena ilaashano oo wixii faa'iidadeeda aan ma garanaysaa garab istaagno wixii khasaaraheeda aynu hal meel aan ka soo wada jeesano boolisku si guud bay ilaaliyaan laakiin waxa si gaar ah oo bareefad ahaan u ilaalin karta bulshada waayo boolisku si guud bay noo ilaaliyaa laakiin xaqiiqada dhabtee meel kasta ka jirta dadkoogu waa inaga bulshadana waxaan kula talinayaa inay iskarabsadaan gacmooda jirba wax ku gooyaan boolisku markuu ina caawinayo inaguna aan la shaqeyno waan guuleysan karnaa bulshadu waxay door muhiim ah ku leedahay asaasiga iyo nabadgelyada iyo ka warhaynta iyo badqabka bulshada saasoo tahay dadku waxa ugu habboon wanaagsan qolka hore in isku duubnaadaan dawladdoodana daacado ahaadaan dadkoodana maamulkooda iyo xakamayntooda isla joogaan bulshada ka adil loo kaliya bulshada kaliya xaq qabato ma qaban karayso saasoo tahay haday noqoto dawladana kaliyana xaq qabato ma qaban karayso waayo lama kala maarmi karayo waa waliya diirkeed marka gacmooda jirbi ku gooyaan bay Soomaalidu hore u tiri san u helan nabad waarta iyo nabadgelyo dhaxal gala waa inaan isku duubnaano gacmaheedana iyo fariheena ay mid ahaadaan waa inaan dadkeena kuweena xataa waaweyn yani aan مسؤولينتا وين الشعب كود يدد كود أي كورهيان وين بدقب كود ينبت بيود الله السقو بالشدو وحويان تيركا أي دولة كل سنة دولة من نقول سعدين بالشدة إذا وضع شقين أي كده حينين هي حرير في عن مركا بالشدو هي شعب كونه المجال ده أما ملك استو ديجان كنا كميدا وتيركا كلية إن متقليدا waxaan ugu baaqi lahaa inay hay'adaha nabadgelyada la shaqeeyaan wax kasta oo nabadgelyada ka hor imanaya oo ay arkaan iyagu ilaan meel walba way joogaan ama xaafadaha noqoto ama suuqa noqoto in ay bulshadu
ay booliska la shaqayso ay meeshii ay dhibaato ka jirto ay u soo sheegaan oo nambaraanta la kala hayo booliska iyo bulshada isku xidhnaato ama ha noqoto qabale ama ha noqoto booliska xarumaha booliska si ay ula soo xiriiraan oo dhibaatada jirta ay ugu soo sheegaan. Manu Xuseen Aadan, Shakaal TV, magaalada Jigjiga. Waxaa maanta xadhiga laga jaray xarunta baadhista iyo daryeelka xoolaha oo laga furay magaalada Qabridaar sida faahfaahinta warkaas uu mar kale inoogu eegayo wariye Cabdiraxmaan Warmaal. magaalada Qabridaar ee xarunta gobolka Qorraxay waxaa maanta xadhiga laga jaray xarunta sheebaadhka xoolaha ee magaalada Qabridaar. Haddaba xaruntani ayaa waxay u adeegi doontaa 3 gobol oo kamid ah gobolada ugu xoolaha badan ee deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo kala ah gobolka Qorraxay, Shabeelle iyo sidoo kale Doollo. Munaasabadda xadhig jarka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay gobolka Qorraxay iyo sidoo kale xafiiska horumarinta xoolaha ee deegaanka Soomaalida. Haddaba mas'uuliyiinta halka ka hadlay ayaa waxay carabka ku dhufteen faa'iidada ay u yeelan doonto horumarinta ama sheebaadhka iyo daryeelka xoolaha ee 3 gobol. waxaana kamid ahaa hadaladoodii. xaruntan oo hadda ka hor dhismaheedu dhamaado xadhiga laga jaray yaa maanta waxaanu si rasmi ah u bilownay shaqadeedii. waa goob u adeegi doonta 3 gobol, gobolka Qorraxay iyo Doollo iyo Shabeelle. 3 gobol baa looga adeegi doonaa hadduu alla idmo. shaqaalaha hadda waxaan keenay 8 qof ah oo dhakhaatiir ah iyo maareeyaheedii 5 waaxood oo shaybaadhka xoolaha iyo adeeg hufan ka bixin doona hadduu alla idmo. dhammaan qalabkiisii oo dhan waan u soo dhammaystiray generatorradii iyo wax allaale wixii qalab ee shaybaadh ahaa ee meesha u baahnayd oo dhan way ku dhammaystiran tahay. waa xarun dhismaheedu xilli hore la bilaabay soo yarjiitantay maanta si rasmi ah shaqadii iyo wax walba ay u bilowday. xafiiska xoolaha in shaqadaasi sidii ay bishan ama kwartalkan ayna u dhaafin buu dadaalkeeda galay. shaqooyin badan oo dib u socon lahaa buu aad u soo dedejiyay xoog iska saaray. waxaan ugu heliyay goobtoona la socday gudoomiyaha gobolka iyo maayarka magaalada Qabridaar way nala soo kormeereen, way arkeen shaqooyinkii wixii oo dhan. marka ayagana ka maamul ahaan waxaan kula dardaarmaynaa inay xaruntaasi wixii ay uga baahatee shaqo ay kale iyo levelkooda inay caawiyaan tiimka jooga. tiimkaasna shaqooyinkoodana iyaguna ay sidii loogu talagalay ay u fuliyaan oo aysan noqonin wax uun marra xidhmo marra dhaqaaqa mana noqonaysa saan qabno. marka aad iyo aad baan u faraxsanahay. waxaan ilaahay rajaynayaa inay shaqadaas meeshaasi noqoto xarun aad u fiican oo 3 gobol dhibaatadii xoolaha ee haysatay ee xagga dawooyinka iyo cudurrada inay wax ka tarto oo baahidii loo qabay dhibka badnayd ay maanta wixii ka dambeeyay ay inta ku ekaato hadduu alla idmo. waanu siina dadaalayna hadduu alla. halkan waa magaraysaa xarunta sheebaadhka xoolaha ee Qabridaar oo ah xarunta labaad ee deegaanka ka jirta oo heer deegaan ah oo hadda shaqadeeda bilaabaysa. maanta laga bilaabo shaqada xaruntu waa functional oo mid shaqeynaysa. waxay qaban doontaa inay baadho cudurrada magaraysa xoolaheena ku dhaca, kuwa magaraysa la aqooniyo, kuwa magaraysa si jirayba, kuwa isla markaana ay xaqiijiso noocyada cudurrada ay kala yihiin si dhakhaatiirta deegaanka ama magaraysa xoolaha loo daweeyo, ka hortagna loo siiyo, isla markaana loo xakameeyo cudurrada faafaya ee xoolaha ku dhacaya. kolkaas xaruntaas waxay magaraysaa iyada kaashanaysa hay'adaha, jaamacadaha, kulliyadaha. waxay sidoo kale soo kordhin doontaa inay daraasadaad cilmiyeysan oo ku salaysan magaraysaa cilmiga sayniska cudurrada xoolaheena ku dhaca nooc kasta ay noqdaanba noocyada meesyadooda kala duwan. waxay kaloo bixin doontaa wacyigelin ku salaysan magaraysaa ama ku saabsan qaabkii macnaha magaraysaa cudurrada xoolaha iyo dadka iskugu gudbaan loo kala ilaalin lahaa ama loo control loo xakameyn lahaa. waxaa kaloo ay sameyn doontaa in iyadana wacyigelin toos ka bixiso macnaha baahiyaha habnoloodka xoolo dhaqatada ayay qaban doontaa. waxaa ahmiyaddeedu koowaad ay saaraysaa laakiin in shaybaadhka xooluhu xoog saaraya in magaraysaa ay xogta cudurrada la ogaado isla markaana la xaqiijiyo noocyada cudurrada kala duwan ee xoolaha ku dhaca. shacabka xoolo dhaqatada ee ku nool degmada Haroreys ayaa sheegay in xilligan oo jiilaal ah ay isticmaalayaan ceelasha riiga ah ee xukuumaddu ay ka hirgelisay degmada Haroreys
sida faahfaahinta warkaasi inoogu eegayo wariye Cali Ayaale. degmadan Haroreys ayaa waxa ay nolosha dadku ay ku tiirsan tahay dhinaca xoolaha iyo waliba beeraha waxayna shacabku ay xilligan mashquul ku yihiin aroorka xoolaha oo ay markaasi xoolahooda u soo aroorinayaan ceelasha riigaga ah ee markaasi xukuumadda deegaanku ay ka furisay degmadan Haroreys. Shakaal TV ayaa booqday ceelasha riigaga ee xoolaha iyo dadkuba ka faa'iideysanayaan. qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ayaanu markaasi la sheekaysanay. ceelkan Haroreys muddo badan yaa meeshan oon iyo dib lagu soo qabay sida hadda taariikhda aan ka soo gaadhnay odayadu looda halkan way ka guulin jireen ceelka ceel baxaa ma jigjiga yaa laga soo waraabin jiray tii halkan joogta dad tamar leh tamar ilaahay baa leh laakiin dadkaas dad tamar leh oo maanta ma ahee tallaabo qaadi karaan annagu hadda halkani waxa suuragal ah dadka barkii inay cidhiidhi ku tahay imanba kari laayihiin waxaasna waa maxay waa hadda qarni waqtiga jooga iyo tamar la'aan ceelkani muddadii hore ceel hore Haroreys jiro halkaa ka horeeyo halkaa ka qodnaa kaas nidaam iyo wax biyaa iyo wax ma ahee maanta mustaqbal oo laga helay ma jirin wax laga faa'iideeyay ceelka ma jirin inta ka dambeysay dawladda akirto inta meesha soo degtay ceelka noo qoday waan ka xaq baxnay biyo deegaankuna ku soo kacamay biyaha sababtoo ah waa baraagu dhulku leeyahay bulshaduna way ballaaran tahay halkan ilaa hartii sheekha wax ceelo u dhaxay hadda ka hor ma jirin waxa suuragal ah looda biciid la ama ka timaad siyaaradii ama gobiirta u nuurku inay halkan ka cabto sanada dhaweyd wax ilaahay lagu mahadiyo weeyaan ceelkii geed balaadhiye ka jigjiyaad wax u dhaxeeyna ma jirin laakiin hadda ay dawladdu tallaabo qaadatay hadday juuq tahay hadday maahay deegaanka kala tahay ceelal fara badan bay ka qoday hadda waxa ilaahay ugu mahadinayo kale ceel hadda halka meesha odaxda la yiraahdo laga qodaa jiray isnooyga cusub sababtoo ah ceel kaasan isna yaa wax tar kale halka ka helay waxa la wixii saxatilay ya cakaara iyo canda dirishe ma ahayn ruke waxa la wixii ceelkaas ku aroora biyo fiican oo qurux badan baa halkan ka soo biiray wax ilaahay lagu mahadiyo weeyaan waxa kale oo soo biiray halkan ma xasharka ee hadda harre gumburga harre ceelkaas ma biyo badna laakiin kaasina ku noo soo biiray weeyaan waxa kale oo soo biiray ku halkan walge iyo harbiciid u dhaxeeya isna jira wali lama sharabin ilaahay waxaan ka rajeynaa kaasina in wax natiijo laga helo marka wax ilaahay lagu mahadiyan saaka joogna biyaha si fiican aanu cabno si wanaagsan oonkii hore naystay maanta aanu ka baxnay si wanaagsan weeyaan oon maanta wariyaha la joogo waxaan ka soo oray Cali Dudub degmada Cali Dudub qabaleega Cali Dudub baan ka soo arooray si wanaagsan baan ayaanu cabnaa waxaan ka soo aroornay mahbarka Doogacsleen Magol Dheere waqtiga hore halkan oon badan baan ku qabnay inta dambe dawladdu ay noo sameysana si wanaagsan oo nidaam laanu cabnaa oonkii isagu uu naga haray dhalinyaradan biyaha noo haysaana si wanaagsan bay dadka u maamushaa u waraabisaa biyaha xooluhuna aad bay ugu quruxsan yihiin waxa aad loogu mahadnaqaan joognaa waqtigii hore oo manaan ahayn eegana biyaan haynaa maalin bay qadaysaa maalin qad bay loodu qadaan ku soo celinaa kolkay maalin qaday cabtaa oonkii ilaahay wuu naga bixiyay dawladdana waan ugu mahadnaqaynaa dadka noo hayana waan ugu mahadnaqaynaa macnaha oonkii hore iyo dhibtaan qabnay waan ka baxnay qaban karaa xagga ma garanaysaa biyaha ceelashu naga go'een ceelashii oo xareedii dee naga go'day taana laftarkiisa waan doonaynaa oo dhaankii waan naga ma wadnaa hadda ka horse dee waxaanu cabaynaa fadhigaan ku cabaynaa barkadiisa oo naga go'day dee saasaanu doonaynaa waxa kaloon dawladda ka codsanaynaa maanta dhaamisada afka way nagu dheer tahay intaana biyihii barkadii baa naga madhay macnaha biyo la noogu soo shubaan dawladda ka codsanaynaa degmadan haddaba ka mid ah degmooyinka gobolka faafan ee deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku fiican tahay dhinaca wax soo saarka waqtiga guga iyadoo xilligana ay jilaal tahay taasoo ay dadku ka faa'iideysanayaan ceelasha markaas ay xukuumaddu ka fulisay sanadihii u dambeeyay degmadan Haroreys waxaana ay dadku waqtigan ay yihiin kuwa markaasi ku mashquulsan waraabinta xoolaha iyo waliba dadka Cali Ayaale Shakaal TV degmada Haroreys. wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa sheegtay in wasaaraddu ay baaritaano xaqiiqo raadin ah ku sameyn doonto sababaha keenay in arday badan oo sanadkii hore galay imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare ay heleen buundooyin hoose sida faahfaahinta warkaas inoogu eegayo wariyaheena Sakariya Cabdullaahi. ardayda sanadkii hore u fadhiistay imtixaanaadka qaran ee shahaadiga KCSE ee dalkani Kenya oo shalay natiijadooda helay ayaa lagu booriyay inay bartaan culunta farsamada
waxaa baaqan soo saartay siihayaha xilka agaasimaha guud ee waxda u qaabilsan wanaajinta tayada qiimeynta qaran ee waxbarashada dalkani Kenya Dr. Alice Kande. Ardaydii helay buundooyinka hooseeya ay kula talisay inay bartaan farsamo gacmeedka oo si tartiib ah ugu gudbaan xeerka xiga ee tacliinta sare. hase yeeshee wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya Ezekiel Muchogu ayaa sheegay in wasaaradda ay baaritaano xaqiiq raadin ah ku sameyn doonto sababaha keenay in arday badan oo sanadkii hore sameeyay imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee KCSE-da ay u heleen buundada ugu hooseysay ee iida. wasiirka ayaa tirada ardaydan ku sheegay 48,174 arday xilli uu si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada KCSE-da. waxa uu hoosta ka xariiqay inuu ka xumaaday in arday ay tiradooda u dhiganto 5.33% ay buundada iida heleen. wasiirka tacliinta dalkani Kenya Ezekiel Muchogu ayaa xusay in guddi baaritaanadan sameynaya uu haysto muddo bil ah oo ku soo bandhigaya warbixin faahfaahsan. waxaa imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee KCSE-da sanadka hore buundada ugu sarreysay eeda ka soo hooyay 216 oo arday ah. tiradan ayaa isugu jirto 825 wiilal ah iyo 351 oo gabdhood. wasiirka tacliinta dalkani Kenya Ezekiel Muchogu ayaa xusay in guddi baaritaano sameynaya uu haysto muddo bil ah oo ku soo bandhigayo warbixin faahfaahsan. hase yeeshee waxaa imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee KCSE-da sanadkii hore buundada ugu sarreysay eeda ka soo hooyay 216 oo arday ah. tiradan ayaa isugu jira 825 wiilal ah iyo 391 oo gabdhood. tani ayaa ah 0.4% ee ardayda imtixaanaadka u fadhiistay. sidoo kale waxaa buundada sii bilaastay jaamacadaha loogu biiro iyo wixii ka sarreeya helay 201,133 oo arday ah. tani oo u dhiganta 22.27%. si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dalkani Kenya mudane William Ruto ayaa sheegay in dowladda ay shaqaalaysiin doonto macallimiin dheeraad ah oo gaarayo 20,000. waxa uu xusay in horey loo howlgeliyay 56,000 oo barayaal ah. shaqaalaysiinta macallimiinta cusub ayuu sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan si loo wanaajiyo tayada waxbarashada ee waddanka. William Ruto madaxweynaha dalkani Kenya ayaa intaasi ku daray in dowladda ay lacag dhan 46 bilyan oo shilinka dalkani Kenya ah ay u qoondeysay nidaamka cusub ee maaliyadeed ee jaamacadaha, halka 5 bilyan oo kale looga talagalay macadyada lagu barto farsamada ee TVETska loo yaqaano. dhanka kale madaxweynaha ayaa sheegay in qorshaha dowladda uu yahay in 10 sano gudahood meesha laga saaro qarashaadka hadda Kenya ugu baxo inay cuntooyin ka soo iibsato dalka dibadiisa oo ah 500 oo bilyan oo shilinka dalkani Kenya. Zakaria Abdullahi Taxaw, Shakal TV, Nairobi. waa hagaag daawadayaal intaas waxa inoogu ee qodobada warkeeni fiidnimo. waxa warka idinla soo codsiinaysay anigoo Mano Xuseen Aadana. tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah.